marwada koobaad ee qaranka Soomaaliland Madaxweyne Waris Sheekh Maxamed Jirde ayaa maanta ka soo degtay madaarka caalamiga ee Berbera waxaana marwadu soo dhameysatay safar gaar ah oo muddo bil ah qaatay oo ay ugu magnayd wadanka Ingiriiska waxaana halkaas ku soo dhaweeyay mas'uuliyiinta gobolka Saaxil Maariyaha dekada Berbera mas'uuliyiinta heer degmo wafti ay horkacayso wasiirada waxbarashada Soomaaliland Marwo Samsam Cabdi Aadan agaasimaha samafalka madaxtooyada iyo agaasimaha guud ee kalluumaysiga iyo dadweynaha aad u fara badan ayaa ka qayb qaatay soo dhaweyntaasi Madaxweyne Waris Sheekh Maxamed Jirde marwada koobaad ee Soomaaliland oo warbaahinta kula hadashay qolka VIP-da ee madaarka Berbera ayaa u mahadnaqday shacabka iyo mas'uuliyiinta ka qayb qaatay soo dhaweynteeda waxaana tiri alxamdulillaah rabbil caalamiin hawli shakhsiga hana way soo dhamaadeen dalkaygii hooyaan maanta ku soo noqday iyadoo la wanaagsan yahay nabadgelyo caafimaad bashbash iyo barwaaqo aynu haysano aad iyo aadna waxaan ugu mahadnaqayaa dadweynaha reer Berbera guud ahaan maamulka soo dhaweyntan sharafta leh abaabulay guud ahaan waxaan kale u mahadnaqayaa dadka kale faraha badan ee saaxiibaday haweenka u badan ee Hargeysa ka yimi iyo rag bale aad iyo aad baan u mahadnaqayaa marwadu sidoo kalena kormeer ku tagtay warshada leyrka ee Berbera iyadoo sidoo kalena dhagax dhigtay jid laami ah oo cusub oo ka bilaabmaya garoonka kubadda cagta ee Berbera ilaa iyo suuqa magaalada Berbera oo uu tilmaamay xogayuu in imika la bilaabayo ugu dambeyntiina marwada koobaad iyo xubnihii waftiga ah ee ka socday dhinaca caasimada ayaa u ambabaxay dhinaca caasimada Soomaaliland ee Hargeysa Cabdikariim Saciid Saalax Home Cable TV magaalada Berbera